الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدومي كحيين ككواد قلها الشعب كإمبارلمان كفيدرالك حلبانا ضلبادا أقل برلمانك قدوميها محكمة دصره وزيرada iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay xafladan munaasabadan ka soo qayb gashay ee 1 July dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. munaasabadan hadallada iyo khudbooyinka ku aadan waxaa shacabka Soomaaliyeed u jeedin doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ka hor waxaan rabaa in dhowr su'aalood aan isweydiino. sida la ogyahay bulsho walba la soo gumaysiga markay ka baxaan waxay isweydiiyaan munaasabadaha markay xusayaan maxaa la soo kordhiyay, maxaa isbeddel la sameeyay, ma isbeddel dhinaca dhaqaalaha la sameeyay, ma isbeddel dhinaca bulshada la sameeyay, ma isbeddel dhinaca aqoonta la sameeyay, maxaa la sameeyay? su'aashaas la isweydiiyaa. waxay la tahay bulshada Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed su'aashaas inay isweydiiyaan. haddii dhaliili ay jirtana 59 sano kadib haddii dhaliil ay jirto dhaliishaas waxaa ka raadisaa meesha adiga aad kaga jirtid. haddii horumar uu jirana horumarkaasi meesha adiga aad kaga jirtid ka raadi. waxay la tahay mujtamaca Soomaaliyeed waa mujtamac maskaxiyan furan marka la barbar dhigo bulshooyinka kale oo caalamka ka jira. waxay la tahay haddii runtii loo daayo fikirkooda iyo caqligooda iyo xoogooda aan faragelin lagu samayn waa dad awooda inay si degdeg ah u soo kabtaan. waxaan aaminsanahay su'aasha ah meesha kaga jirtid guusha iyo guuldarrada isweydii kelmaddaasi inay munaasabadan ku habboon tahay. waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya